inkasta oo si guud cuntooyinka waxtarka caafimaadka leh u siman yihiin rag iyo dumar, haddana sida ay marar kala duwan xaqiijiyeen culimada caafimaadku waxaa jira kuwa waxtarkaasi caafimaad ee aadamaha siiyaan si tayo iyo awood badan marka loo eego kala duwanaanshaha jinsiga. Qormadan oo aynu ku soo qaadanay shabakada Al-Carabiya waxa aynu ku eegaynaa qaybo ka mid ah cuntooyinka ay xeeldheerayaasha caafimaadku sheegeen inay si gaar ugu fiican yihiin caafimaadka ragga. 1. Kalluunka. Sida cilmi baaris caafimaad xaqiijinaysa, kalluunka gaar ahaan noocyadiisa aadka qaniga u sii ah duxda acid ee omega 3 ayaa ka mid ah cuntooyinka waxtarka badan u leh ragga. Faa'iidooyinka ay ka helaan waxaa ka mid ah inay ka hortagaan iyo difaaca fiican ugu noqoto cudurrada ku dhaca wadnaha iyo xididdada dhiigga. 2. Lowska. Sida uu ku cad kutubkii laga soo gaaray xaadiriintii rubaaniyiintii hore, lowsku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka u fiican caafimaadka ragga, gaar ahaan sida aadka ah u xoojiya awoodda jinsiga. 3. Saliidda saytuunka. Saliidda saytuunka uu ninku joogto u isticmaalo waxay si weyn uga caawisaa xakameynta iyo ka hortagga faaliga iyo dhiig furanka maskaxda. Baaritaanada caafimaad waxay xaqiijiyeen in saliidda saytuunka ay awood ahaan u leedahay ka hortagga dhiig furka maskaxda ku dhaca. 4. Koosto. Caleenta koostada la yiraahdo oo ka mid ah qudrada laga helo dalkeena ayay khubaradu caafimaadku sheegeen inay xoojiso caafimaadka jinsi ee ragga. Sababtu waa maadada magnesium oo ay aad hodan ugu tahay. Waxayna khubaradu caafimaadku xaqiijiyeen in maadadani ay kordhiso burqashada dhiigga iyo awoodda uu gaarayo xubinta taranka ee ragga. 5. Xabxab. Waa qaraha. Xabxabka ayaa inta badan khubaradu ku xeeldheer nafaqada iyo faa'iidooyinka caafimaad ee cuntada ku magacaabaan Viagra oo ay uga jeedaan dawada magaca leh ee loo isticmaalo kordhinta awoodda jinsiga. Sababtu waa acid saccharoline ee xabxabka ku badan iyo khubarada oo sheegeen inay caawiso dheeraynta waqtiga xidhiidhka jinsiga. 6. Baradhada. Baradhada waxay ka mid tahay cuntooyinka ay khubaradu sheegeen inay kordhiso awoodda jinsiga ee ragga, iyada oo arrintaasi ku sababeynaysa maadada potassium ee baradhadu ku badan. Intaas ayaan ku hakinayaa barnaamijkan. Intiisa kaletana waxaad kala socon doontaan qeybaha kale ee barnaamijka Daryeel. aad ayay u mahadsantihiin.